وعن wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay marxaladaha dagaalka ka soconaya gudaha dalka Ukraine waxaad naga daawanaysaan Barakaad Media iyo sidoo kale Barakaad Production wad ku mahadsan tahay daawashadaada madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin oo si weyn u careysan ayaa saacadihii la soo dhaafay amar ku bixiyay in ciidamada wadanka Ruushka ee ku jira gudaha dalka Ukraine si gaar ah afarta gobol ee dhawaanta Ruushka uu qaramay ay qaadaan tilaabo wax ku ool ah isagoo oo fasax buuxa amaba amar buuxa siiyay ciidamadu in ay adeegsan karaan wax walba ay awoodaan marka laga reebo hubka lambarsadeedkiisu uu gacanta ku hayo madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin iyo dhowr sarkaal oo aad u kooban waxaan u jeedaa hubka nuclear-ka dhanka kalena ciidamada dalka Ukraine ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in gobolka Kherson ay saacadihii la soo dhaafay weerar aad u xooggan ay ka geysteen iyagoo sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga dalka Ruushka ay furmaha hore ee dagaalka ku geeriyoodeen inkastoo sarkaalkan aanu magaciisu warbaahinta shaacin haddana waxa uu ku nuxnuxsaday in ciidamada qaranka dalka Ukraine ay dhowr tallaabo hore u qaadeen dagaaladii dhacay saacadihii la soo dhaafay maalintii Jimcihii ayuu sheegay madaxweynaha wadanka Ruushka sida ay qorayso warbaahinta taas ee laga leeyahay gudaha wadanka Ruushka in madaxweyne Vladimir Putin uu ciidamadiisu si weyn isugu dubiradayo isla markaana uu amar buuxa ku bixiyay meel kale ha joogtay in gobolada afarta ah ee haatan la qarameeyay amnigooda la sugo dhanka kalena Putin ayaa dhinaca ciidamada sirdoonka iyo kuwa kale ee gaarka waxa uu amar buuxa ku siiyay in tallaabo ay ka qaadaan dhinaca internetka ciidamada adeegsada ee ay Ukraine gaarka u leedahay inkastoo Putin amaradiisu ay yihiin kuwa iska soo daba dhacaya haddana taas waxaa barbar soconaya saraakiil sarsare oo ka tirsanaa ciidamada militariga wadanka Ruushka ayaa iyaguna wajahaya xabsi iyo sidoo kale xilka qaadis qaarna waxaa la weerinayaa in ciqaab ay u raaci doonto sarkaal Mikhail la yiraahdo oo ka tirsan militariga dalka Ruushka ayaa dhawaantan mar kale xilka laga qaaday isagoo oo si weyn uga fashalamay in uu si buuxda u la wareego gobolka Kherson madaxweyne Vladimir Putin ayaa si weyn u dhaleelsan qaar ka mid ah saraakiisha militariga dalkaas inkastoo ilaa iyo hadda la warinayo in Putin uu qani ku yahay dhinaca saraakiisha militariga ee ku xeeldheer xeeladaha dagaalka dhinaca kalena madaxweynaha wadanka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha dalka Germany ayaa iyaguna ka wada hadlaya go'aanada adag ee ka imaanaya dhinaca iyo madaxweyne Vladimir Putin waxaana ay sheegayaan in dawladda dalka Ruushka ay macquul tahay in tallaabo adag ay qaado ka gada marka madaxweyne Vladimir Putin ay amaradiisu fulaan iyada oo dhinaca kalena ciidamada dalka Ukraine si weyn haatan loo hubeynayo warbaahinta qaar oo reer galbeedka iyo kuwa Ruushka ay ku jiraan ayaa tabinaya in dagaalkan ka dhacayo gudaha dalka Ukraine si gaar ah gobolka Kherson iyo gobolka la yiraahdo Donetsk ay si weyn ugu lug leeyihiin ciidamada sirdoonka ee wadanka Mareykanka laakiin arintaasi ilaa iyo hadda kama aanay hadlin xukuumadda Washington sarkaal sare oo dhinaca sirdoonka oo warbaahinta la hadlay hayeeshee aan magaciisa la shaacin kana tirsan ciidamada dalka Ruushka ayaa la wadaagay sida la warinayo warbaahinta qaarkood in ciidamada wadanka Mareykanka ay si buuxda ugu lug leeyihiin dagaalka ka soconaya gudaha wadanka Ukraine Dmitry Peskov afhayeenka aqalka Kremlin-ka ee wadanka Ruushka oo su'aashaasi la weydiiyay ayaa isaguna si fiican ku jirto ugu jawaabay inkastoo Peskov uu yiri waxaan ilaa iyo hadda xaqiijinaynaa in cadawga Ruushka iyo dadka Raashiyaanka ay Mareykanku horkacayaan waana hubaal in dawladda Mareykanku ay dabkaas u sii shidayso ayuu yiri Dmitry Peskov dhinaca kalena saraakiisha militariga iyo kooxaha dhinaca qabaa'ilka ee dalka Ukraine ayaa iyaguna wada abaabul aad u xoog badan in mar kale dagaalka ay kaga soo rogaal celiyaan ciidamada wadanka Ruushka ugu yaraantii 2 gobol oo Zaporozhye ay ka mid tahay dhinaca kalena wararka ka imaanaya caasimada wadanka Ukraine ee Kiev ayaa sheegaya in goordhow ay dhowr madaafiic ay ku soo dhaceen waxaana la leeyahay qaarkood waxa ay ku habsadeen goobo ay leeyihiin sirdoonka wadanka Ukraine sarkaal sare oo isaguna magiciisa daboolay oo aan shaaca ka qaadir warbaahinta ayaa sheegay in mid ka mid ah dhismaha ay leeyihiin sirdoonka ciidamada dalka Ukraine gebi ahaanba uu burburay gantaalada soo dhacay ayuu sarkaalkaasi ku sheegay in ay yihiin kuwa tayadoodu ay aad u sareysay isla markaana gebi ahaanba dhismahaasi loo ka geliyay
si kastoo ay ahaataba dagaalka ka soconaya gudaha dalka Ukraine marba marka ka dambeysa ayuu sii xoogaysanaya iyada oo Ruushkan hadda ciidamo xoog leh iyo madaafiic lagu daray raadaalla casri ah uu ku soo daabulayo gudaha dalka Ukraine ayaa madaxweyne Volodymyr Zelensky qudhiisu waxa uu doonayaa in boorka uu dib isaga jafo si kastoo ay ahaataba waaba loo joogaa waxa iska bedeli doona xaaladda dalka Ukraine